ku soo dhawaada qisada dadqalkii Dracula. Marka aad maqashid magaca Dracula, laga yaabay inuu ku soo dhaco maskaxdaada mid ka mid ah filimaanta tirada badan ee cabsida lagana sameeyay Dracula oo dhiiga dadka shaqaya ama la maqlayo qaylo naxdin leh. Haddaba ogow, muuqaaladaas waxay soo xiganayaan qisada runta ah ee jiritaanka beri hore ee dadqalka Dracula. Kumuu ahaa Dracula? waa wiilkii labaad ee uu dhalay boqorkii ka arrimin jiray deegaankii Wallachia ee ka mid ah hadda dalka Romania, taasoo xilligaas hoos tegi jirtay khilaafadii Islaamka ee Cusmaaniyiinta. Inkastoo ay isku dagaali jireen Cusmaaniyiinta iyo Hungariyiinta oo xilligaas lahaa awood ciidan oo xooggan, Dracula iyo walaalkii waxay waxbarasho u joogeen muddo gaaraysa 7 sano dhulkii ay ka talinaysay dowladdii Cusmaaniyiinta. Sanadahaas gudahood, Dracula aabihiis ayaa koox mucaarad ah oo taageero ka helay Hungariyiinta xukunkii inqilaabeen, kadibna isagoo nool duugeen. taasi waxay saameyn daran ku yeelatay Dracula, isagoo go'aansaday inuu si daran uga aargoosto kuwii falka ka dambeeyay. dowladdii Cusmaaniyiinta ayuu ka dalbaday inay ka caawiyaan dagaal uu ku soo ceshado boqortooyadii aabihiis, beddelkeedana uu bixin doono marka uu xukunka qabsado lacag joogto ah oo jizye ah. Cusmaaniyiintu waa caawiyeen Dracula, xukunkii boqortooyada aabihiisna waa soo ceshaday. hase ahaatee, maxaa dhacay markaa kadib? habeen ayuu casho ku casumay 500 oo ka mid ah dadkii uu ku tuhmiyey inay ku lug lahaayeen inqilaabkii iyo dilkii aabihiis. markay dhammaysteen cashadiina, albaabka ayuu u xirtay si irxaan darro ah oo aan horey uga dhicin deegaanadaas ayuu u dilay dhammaantood, isagoo mid kasta oo ka mid ah tiir ka soo lulay ilaa jirkoodu dhammaaday sidii qorraxdu ugu dhacaysay haaduna u cunaysay. dhacdadaas kadib waxaa la waayay cid ku fakarta mucaaradnimo deegaankii Wallachia. muddo kadib wuxuu joojiyey lacagtii uu siin jiray dowladda Cusmaaniyiinta, isagoona ka dhigis ku sameeyay ciidamo aan tiro badnayn oo deegaanadiisa ka joogay Cusmaaniyiinta. taasi waxay ka xanaajisay khaliifkii dowladdii Cusmaaniyiinta, wuxuuna u soo diray ciidan xooggan oo gaaraya 150 kun si ay u soo edbiyaan Dracula. hase ahaatee, taasi ma noqon mid sahlan. ciidanku markii uu u soo jeestay dhanka Wallachia, Dracula wuxuu sumeeyey dhammaan ceelashii biyaha ee ciidanku ka cabbi lahaa, wuxuuna gubay wixii dalag beereed deegaanka yaalay. intaa kuma joogsane, wuxuu ku labistay isagii ciidankiisiiba dharkii ciidanka Cusmaaniyiinta oo ciidankii badnaa dhex qaaday, isagoona habeenkii weerar ka dhex qaadi jiray ciidanka gudihiisa, qaybtoodna afduubay. xaaladaas dagaal waxay saameyn ku yeelatay ciidankii oo ay la soo gudboonaatay oon iyo gaaj, ilaa ay arrintu gaartay inay kala baqaan ciidankii Cusmaaniyiinta ee isla socday. marka la gaaray habeenkii, ciidankii horey ayuu u sii socday ilaa ay maalin soo gaareen tuulo laga guuray. hase ahaatee, naxdin badani taalo waxay ku arkeen askartii laga soo afduubay iyo shacab badan oo dhammaantood loo dilay si arxan darro ah, kana lusha tiirar. muuqaalkaas wuxuu ku beeray askartii iyo hoggaankoodiiba argagax daran. hogaamiyihii ciidankuna wuxuu go'aansaday inuu ciidanka dib u cesho. Dracula waaye ayuu xukumayay Wallachia, dagaalo badan oo la galay Hungariyiinta. ugu dambeyntii waxay ku heshiiyeen inay dhan uga soo wada jeestaan Cusmaaniyiinta. hase ahaatee, muddo kadib, Cusmaaniyiintu ciidan xooggan ayay u soo direen dhanka iyo Wallachia. ciidanka waxaa hogaaminayay Dracula walaalkiis oo qaatay diinta Islaamka, isagoona ahaa midaan ka dhicin walaalkii. dagaalla ay la galeen waxaa u suurta gashay inay dilaan Dracula. kadib, madaxiisa ayaa la soo jaray oo la suray tiir ka mid ah kuwii ka taagnaa albaabada laga geli jiray magaaladii Qustantiniya si ay tusaale iyo cabsigelin ugu noqoto cadowgii khilaafada Islaamka. kadib boqolaal sano geeridii Dracula, qoraaga Bram Stoker ayaa boorka ka soo jafay qisada Dracula, isagoona qoray 1897 novelkiisii caanka baxay ee Dracula. wixii ka dambeeyay, filimaan badan ayaa lagu soo matalay shakhsiyadda Dracula oo lagu matalayo dad qalbila ka dhacday oo dadka dhammaynaya. tabta kaliya oo looga badbaadi karana tahay haysashada toon iyo dabsidasho joogto ah. intaa waxaa noogu dhan qisada dadqalkii Dracula. fadlan haddii aad channelka ku cusub tahay, subscribe saar si ay ku soo gaaraan fariimahayaga. mahadsanidin.